asalaamu calaykum. maxay shiinaysku u cunaan cayayaanka kala duwan sidoo kale eeyaha, mukulaalaha, fiidmeerta ama kibilayda, jiirka, masaska, wax walba oo dhaqaaqayo. waxaa caadi ah in suuqyada shiinayska lagu arko yaxaas eeyo lagu dubayo wadooyinka. من هون راح تشوفوا فئران، خفافيش، كلاب، قطط بنباعوا هون وبنشوا هون في نفس السوق. waxaan fiirinaynaa oo aan ka hadlaynaa salka hoose ee taariikh ahaan meesha uu arrinkan ka imaaday si aan u ogaano waxa saldhigga u ah cunooyinkan dadka kale ayna cunin ee shiinayska u gaarka. Braised meat in a pot, cooked until it's off the bone. Digging into their meal with zest, Chinese like to call it the fragrant meat or the mutton of the earth. What it is dog meat. 2017 hantida ay shiinaysku ku bixiyeen cunidda eeyaha, bisadaha, masaska, jiirka waxay gaartay 74 bilyan oo dollar. waxayna u sameeyeen xilliyada qaar xaflado munaasabado kala duwan. maxay u cunaan noolayaashan iyo qiyaaqsiga leh lagana dhaxlay wax badan cudurro dadku ku hoobtaan sida aafada hadda caalamka gelgishay. waxay ka bilaabatay sida inta badan la isku raacay cunidda kibilayda ama fiidmeerta. waxay samaysaan wax ay ku magacaabaan saxan shurbad fiidmeer ah. waa kee qofka cabayo shurbad kibilay. taariikh ahaan haddaan fiirino sababta 1958 ilaa 1961 shiinaha waxaa ku dhuftay gaajo ay ku hoobteen 18 ilaa 45 milyan oo qof, loona yaqaano taariikh ahaan gaajadii shiinaha ee weyneyd. gaajadaas ama macluushaas waxaa sabab u ahaa siyaasadihii hantiwadaagga shiinaha ee uu dejiyey hogaamiyihii shiinaha waqtigaas Mao Zedong. shiinuhu si guud ahaaneed afartimeeyadii iyo kontomeeyadii wuxuu ahaa dal aad u dambeeyo, sabool ah, malaayiin dadkiisa ahna ka hooseeyaan khadka saboolnimada caalamiga. hogaamiyihii shiinaha waqtigaas Mao Zedong ayaa ku dhawaaqay siyaasad ujeedkeedu ahaa in shiinaha laga dhigo dal horumarsan kana daba tago galbeedka ra'sumaaliga ee wax warshadeeyo. tallaabooyinka uu qaaday Mao Zedong waxaa ka mid ahaa in dhammaan dadka uu ka qaado beeraha ay ayagu sida gaarka u leeyihiin lagana dhigo beero dowladeed. waa macnaha hanti wadaag in beertaada aadan lahayn qof si gooni ah wax u milkin karana in uuna jirin. waana nooc ka mid ah addoonsi wadareedka bini'aadamka lagu sameeyo. wuxuu soo rogay in malaayiintaas beeralayda ah ay noqdaan ciidan diyaarsan, shaqaale ciidan ah, malaayiin shaqaale sida ciidankii oo kale ah, diyaarna u noqdaan inay ka shaqeeyaan meeshii loo jiheeyo. waqtigaas 80% dadka shiinaha wuxuu ku tiirsanaa beeraha, laakiin Mao Tse wuxuu u leexiyay in ay ka shaqeeyaan milidda macaadinta iyo biraha warshadaynta, in shiinuhu isu bedelo waddan wax warshadeeyo, yareeyana ku tiirsanaanta beeraha. arrinkan oo keeni doono khalkhal aanan horay loo arag, dilaaci doontana gaajo lagu hoobto. markii uu beeralayda amray in ay ka shaqeeyaan warshadaha, beerihiin cidla noqdeen, waxaa ka dhashay in shimbiruhu cunaan dalaga maadaama beeruhu cidla yihiin. laakiin Mao Zedong wuxuu soo saaray amar ah laynta iyo ugaarsiga shimbiraha, in shimbiraha laga takhaluso. waxaana dhacay olole caanka shiinaha oo ah laynta shimbiraha, kana qayb qaateen malaayiin qof. ilaahay nidaamka uu kownkan iyo dhulkan ugu talagalay haddii lala dagaalamo waxaa ka dhalanaya natiijo xun. noloshu way isu dheelitiran tahay, nolosha dadkana in ay khalkhal gasho. shimbiraha kala duwan waxay cunaan jiirka, cayayaanka kala duwan sidoo kale. waana nidaam bii'aad isu dheelitiran. markii uu shimbirihii laayay waxaa dhulka qabsaday jiirkii, dhammaan wixii xamaaranayay oo sidoo kale dhulka geliyay beerihii, dabcan wixii soo haray, taasoo keentay in 1958 ilaa 61 macluul gaajo lagu halaagsamay ay ka dilaacday dalka shiinaha. saan soo sheegnay in 18 ilaa 45 milyan oo qof inta u dhaxayso ayaa lagu qiyaasay in ay ku dhinteen gaajadaas. بعد ظهر يوم السبت في 28 من أيلول عام 1976 خيم السكون على الصين. مات ماو تسي تونغ قبل 9 أيام إثر إصابته بذبحة قلبية ناجمة عن خلل في الجهاز العصبي يعرف بمرض لو جيريغ. انحنى ربع سكان الأرض بصمت إجلالا للرجل الذي أمسك بزمام حياتهم لفترة طويلة من الزمن.
لا يمكن مقارنة سلطان ماو على الشعب في الصين في السراء والضراء إلا بسلطان الأباطرة العظماء الذين بنوا الصين، فقد انتشل رعاياه من سبات إمبراطورية من القرون الوسطى وحولهم إلى مواطنين في دولة حديثة. gaajadaas waxay keentay in ay dadku cunaan wixii nuuxsanayo jiir ha sheegin yaanyuur warkeeda dabangaal cayayaan kala duwan mayd dad iyo dugaagba gaajo hadday dhacdo dadku waxay cuni wax walba oo ka hor imaado noocay ahaadaanba magaalada xalab suuriya markii ay maleeshiyaadka shiicada iiraan iyo ciidanka gumaysiga bashaar al asad ay hareereeyeen dadku waxay cuneen mukulaalaha gaajo awgeed xitaa culimadooda waxay fatwoodeen in la cuni karo mukulaalaha si nafta dadka loo badbaadiyo حيث تحولت خيارا وحيدا بديلا من الموت جوعا، فسكانها لم يجدوا قوتا يوميا سوى هذه الكائنات. ما حدا بينفعنا غير الله، شكينا امرنا لله وشكينا المسلمين لله كمان، هل شايفينا ناكل طاط وساكتين. sidoo kale waad maqasheen sheekooyinka dadka tahriibka galo ee saxaraha ku wajaho mawjadaha oonka waxay ku qasbanaadaan cabidda kaadidooda gaajadaas shiinaha ka dilaacday waqtigaas dadku waxay ku dhimanayeen wadooyinka iyagoo kumanaana la waayena cid aasto arrinka wuxuu gaaray in ay cunaan hilibka dadka suuqyana loo sameeyo waxaa ka sii daran in ay caruurtooda isdhaafsan jireen canugayga qalo kaadan qalane ugu yaraan si ay uga fogaadaan dareenka cunidda ilmahooda in aabbuhu intii uu cunugiisa cuni lahaa uu siiyo dariskiisa asagana uu cuno canuga dariska intaas kadib siyaasadda dowladda waxay isu beddeshay in dadka lagu dhiirigeliyo dhaqashada noolayaashaas in ay samaystaan meel ay ku xareeyaan kibilayda jiirka si ay u cunaan cunitaanku markii hore wuxuu ahaa mid ay ku qasbanayeen xaaladda taagan awgeed laakiin marka dambe wuxuu isu beddelay wax u eg dhaqan iyo hab cuneed cusub inkastoo gaajadaas loo yaqaana gaajadii shiinaha ee weynayd ay sababtay dhalashada suuqyo loo yaqaano wet market ee lagu iibiyo cayayaanka kala duwan iyo xamaaratada laakiin taariikh ahaan shiinuhu wuxuu caan ku yahay macluusha iyo gaajada soo laalaabato waa taariikh ahaan sida midii 1911 oo ay ka dhasheen cunidda waxyaabo ayna dadku cunin waxay shiinaysku leeyihiin oraah waayadaas dhalatay oo ah wixii socdo ama dabbaalanayo ama xamaaranayo boobayo waa la cuni karaa waxaa sii dheer xadaaradda shiinaha oo ah mid ku dhisan wathaniyaad aaminsan khuraafaadyo badan oo nolosha iyo arwaaxda la xiriiro iyo weliba nidaam daaweedkii shiinaha taariikhiga taasoo ah inay aaminsan yihiin in cunidda noolayaashan kala duwan ay jirka faa'iido u tahay sida in cunidda masaska uu faa'iido u yahay xubnaha taranka ragga ayagoo aaminsan in noolahan waxa uu u eg yahay uu faa'iido u yahay sida kibilayda in ay leeyihiin ama fiidmeerta aragga ayay u fiican tahay aragga ayay xoojisaa ayagoo leh waatan habeenkii socoto ee wax badan aragto halka cayayaanka yaryar ay aaminsan yihiin in ay leeyihiin borotiin jirka faa'iido u ah magaalada yuulin ee shiinaha waxaa ka jira damaashaad sanadla ah oo eeyaha lagu cuno damaashaad ilaa 10 maalin soconayo kaliya lagu cuno hilibka eeyaha. Last April, a confrontation outside Beijing brought the long simmering debate of animal rights to the national stage. Animal protection activists stopped a truck carrying some 500 dogs destined for restaurants in northeastern China. shiinaha sanadkii waxaa lagu cunaa 10 milyan oo eey sida la qiyaasay suuqyada hoteelada iyo maqaayadaha kala duwan asbaabta kale ee keentay in shiinaysku cunaan cayayaanka iyo noolayaashaas kala duwan waxaa ka mid ah kala duwanaanta cunnada shiinayska in cunnada iyo samaynteeda ay fan oo arkaan u baahan in mar walba wax cusub lagu soo daro sida inay leeyihiin yaa samayn karo cunno aanan horey loo arag yaa samayn karo shurbad fiidmeer ama kibilay waxaan filayaa ugu yaraan in aan wax ka ogaanay sababta ay shiinaysku cunaan noolayaashaas kala duwan